meeshaan markaa xisbi ayuu qofku ka tirsan yahay deegaan doorashana waa loo geeyay kursigiina beelaa ku tartamay aaliyay qabiilkiiba la sheegay muqta sharciga kama xishooninba 4.5 kiina hal ilaaliyaa leeyahay dawlad goboleedna waxa la yiri deegaan doorasho ku tahay say isku qabanay marka in la yiraahdo qabiilkiina waa la diidaa dawlad goboleedkiina waa la diidaa oo lagu ololay karo sharcigiina ay ku qoranta meeshaas ma waafaqaydo aniga waxaan qabaa arinta ka hadlayda arrimo qabiil iyo arrimo gobolaysi inay sameeyay ku jirin sharciga ba tilmaamo dibniyan u tilmaamayo talahan waxaan soo jeedinahay meesha laga saaro qodobka kontoni lixaad faqradiisa labaad saddexaad shanaad iyo lixaad ee ka hadlaysa muddada qabashada doorashooyinka heer federaal waxay dib u dhici kartaa oo kaliya haday jiraan duruufo adag ayaa leeyahay duruufahaasna waxaa lagu sheegay musiibo qaran nabadgelyo darro baahsan oo dalka ka dhacda aafooyin dabiiciya dhulgariir cudurrada faafa abaaro baahsan fatahaado wabiyada iyo duufaano waxay soo jeediyeen guddiga marka la yiraahdo haddii arrimahaas farsamo ay u qabsoomi weydo doorashadu 6 bilood ayaa dib loo dhigaya haddii duruufahaas ay sameesha ka bixinna baarlamaankaasi jooga mudana guddoomiye mudanayaal ani waxaan qabaa qodobkan kontoni lixaad ee faqrooyinkiisa aan ka soo hadlay waxay ka soo horjeedaan qodobka 6aad iyo qodobka 91aad ee dastuurka ee xeerinaya in muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ay ku mudaysan tahay 4 sano sidaas daraadeed qodobkan waxaan qabaa meesha in laga bixiyo afooyinkan iyo dagaaladani waxaan aad sheegaydiina dalkan hore uga soo dhaxay 64 doorasho la qabtay iyadoo Itoobiya dalka inta ku soo duushay qaybo kamid ah ay qabsatay ayaa doorasho dalkan laga qabtay waa tii Cabdirashiid Ali Sharmaake Allah u naxariistay oo raahdiisii ay gacan oo ku footaynaynaa gacan oo ku dagaalamayna baarlamaanka oo horjeedi jiray xilligaas waxaa jooga Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashiid Ali Sharmaake Allah u naxariistay labadooda taasi marka suuragal ma noqon karto cudurdaarna ma noqon karto qodobka labaadna wuxuu yahay 2012 doorashada 2012 markii doorashada la qabanay abaara baxsan dalkan ka jira 250,000 oo Soomaaliya ayaa ku baabeen oo ku leedahay saasay taana dalka doorashada laga qabto 2016 ayadoo cadowgu joogo oo meel walba la qarxinayo ayaa inta laga tagay caasimadda waliba waxa loo gudbay sheeg maxay ahayd dawlad goboleedyadii oo doorashada laga qabto ani waxay la tahay marka cudurdaarka meeshan la gelinayo inuu san ku jirin sidaas daraadeed wax la yiraahdo extension oo ama baarlamaan loo sameeyo ama madax loo sameeyo lama arko 27 December iyo 7 February madaxweynaha iyo baarlamaanku doorasho inay inta aadaan dadku u tagaan cod ka soo helaan laga rabo baarlamaanku waa inuu deegaanadiisii aado cod soo helo madaxweynuhu inuu tartamo la rabo laakiin in la yiraahdo aafooyin ayaa dalkan ka jira oo hore uga jiri jiray ayaa doorasho lagu baajina cudurdaar aan maqbuul ahayn waa sharciga ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed ma aqbali karto waxaan qabaa marka qodobkaas meesha laga tiro ma santii